Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeena maanta. Waxaynu ku soo qaadan doonaa personality test ama tijaabada nooca shakhsiyadda qofka qaybtiisa saddexaad. Qaybtan waxaan idinkula wadaagi doonaa daraasad laga sameeyay qaabka uu qofku gacmihiisa u dhigo marka uu taagan yahay iyo nooca shakhsiyadeed ee ay tilmaamayaan. Balse intaynaan bilaabin barnaamijka, daawade haddaad ku cusub tahay kanaalka ku soo biir siina sheer garee barnaamijka si uu gaadho saaxiibo kale oo danaynaya inay warbixinaha noocan ogaadaan. Mahadsanid. daraasaduhu waxay daaha ka qaadeen in tijaabada shakhsiyadda ee ku salaysan sifooyinka jidhkeena iyo habka aynu u fadhiisanno, u istaagno, u soconno, u hadalno, wax u cunno, ama xitaa qaabka aynu isku weydaarino gacmaheena marka aynu fadhino ama taagannahay ay caawiso si aan u qeexno dabeecadaheena shakhsi ahaaneed. Khubarada luqadda jidhku waxay daraasad ku sameeyeen habka kala duwan ee gacmaha la isku weydaariyo sida aan sawirada ka arki karno, waxaana isku dayeen inay ogaadaan nooca shakhsiyadeed ee aynu nahay nolosheena. noocyada kala duwan ee gacmaha la isku weydaariyo waxay leeyihiin macnayaal kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, qaababka qaarkood ee gacmaha la isku weydaariyo macnaheedu waa amar, kalsooni iyo qaabab awood leh oo luuqad jidheed ah. Haddaba daawade, waxaynu falanqayn doonaa 4 nooc oo ah qaababka qofku gacmaha u dhigo ama isku weydaariyo, kuwaasi oo daraasaduhu qeexeen nooca shakhsiyadeed ee ay tilmaamayaan. nooca koowaad waa qaabkan shaashada kaaga muuqda. Haddaba daawade, haddii aad tahay dadka qaabkan gacmaha u dhiga, maxay tahay nooca shakhsiyadeed ee aad leedahay? Qaabka noocan ah waxaa lagu tilmaamaa in qofkaasi dabeecad ahaan uu yahay mid mar walba difaac ku jira, murugaysan ama dareen ahaan kacsan oo cadha ka muuqato. Badanaa dadka qaabkan sameeya, gaar ahaan marka la wada sheekaysanayo, waxa ay ka dhigan tahay ama ay calaamad u tahay in ay dhib ku dareemayaan sheekada ama nooc isdifaac ah ay gelayaan. dabeecaddani waxa kale oo ay muujinaysaa ammaan darro, shaki, walaac, walbahaar iyo xishood. dadka qallafsan bulsho ahaan ama aan dhexgalka lahayn ayaa sameeya tilmaantan sida badan. waxaa laga yaabaa inay dhoola caddeeyaan si ay ugu muuqdaan kuwa dareen wanaagsan leh oo kalsooni leh. Si kastaba ha ahaatee, qaabka noocan ah ayaa muujinaya waxa ay dabeecaddoodu tahay. nooca labaad, sida shaashada ka muuqata, waa qofka oo hore soo mariya gacmihiisa oo isi saara. qaabka noocan ah waxaa lagu tilmaamaa in shakhsiyaadka noocan ahi ay dareemayaan daciifnimo iyo walaac, laakiin waxay u muuqdaan kuwa kalsooni leh marka ay bulshada dhex joogaan. caadiyan, qofka qaabkan sameeya ma jecla inuu dareemo inuu dadka ka dhex muuqdo, waxaana shakhsiyadan u badan ragga. sida luqadda jidhku tilmaamayso, tani ma aha dabeecad si dhab ah u muujinaysa isku kalsooni oo qaabka noocan ah waxaa sameeya dadka sida badan kalsooni darro ka dareemaya gudaha naftooda. luuqadda jidheed ee noocan ah waxay sidoo kale muujinaysaa nooc isxakamayn ah marka uu qofku dareemo kalsooni darro ama cabsi. nooca saddexaad waa qaabkan hortaada ka muuqda. waa qofka oo labadiisa gacmood dhabarka mariya. badanaa dadka noocan ahi shakhsiyaddoodu waxay tilmaamaysaa inay yihiin dad kalsooni leh kuna faraxsan waxay isla waqtigaa qabanayaan. luuqadda jidheed ee noocan ah ayaa muujinaysa isla weynaan ama inuu qofku dareemayo in uu ku faanayo aqoontiisa ama kartidiisa. sidoo kale, shakhsiyadda noocan ah waxay tilmaamaysaa in qofku aanu wax xiisayn ah u qabin ama wax danayna aanu siinayn waxyaabaha agtiisa ka dhacaya ama dadka ku hareeraysan ay falayaan. shakhsiyaadkan dabeecaddooda waxaa ka mid ah inay rabaan in la ixtiraamo oo laga dambeeyo, waxay soo jeediyaanna la qaato, waxay jecel yihiin in ay amar bixiyaan mar walba. qaabka noocan ah waxaa inta badan adeegsada hogaamiyeyaasha booliska, maamulayaasha, macallimiinta ama qof kasta oo mas-uul ah ama muujinaya awood. qaabka afaraad waa qofka oo labada gacmood dhabarka mariya misena hal gacan kor u laaba sida sawirka ka muuqata. shakhsiyadda noocan ah waxay tilmaamtaa in qofku dareemayo kalsooni darro iyo haybad la'aan. waxay sidoo kale muujisaa awood la'aan iyo isdhiibid. luuqadda jireed ee noocan ah waxay muujisaa in qofku isku dayayo inuu naftiisa dejiyo oo raadiyo xasilooni. markasta uu qofku qaabkan sameeyo, waxa uu dareemayaa walwal, kacsanaan iyo walaac. dabeecaddan waxay inta badan muujisaa inuu qofku raadinayo raaxaysi iyo dareen ammaan ah si uu u awoodo inuu nasto. badanaa qaabkan waxaa sameeya dadka aan lahayn awood ay ku dhex galaan meelaha ay bulshadu isugu timaado. sidoo kale waxaa qaabkan sameeya carruurta ama dhalinyarta aan hubin jawaabaha su'aalaha la weydiinayo, ama xataa ardayda marka su'aal la weydiiyo qaabkan way sameeyaan. haddaba daawade, magu jirtaa dadka leh astaamahan aynu soo sheegnay? hoos noogu reeb shakhsiyadaada iyo qaabka aad u dhigto gacmahaaga marka aad taagan tahay ama aad fadhido. waxaa laga yaabaa inaad nasiib u yeelato inaan barnaamijyo kale ku soo qaadano. barnaamijkeena maanta intaasi ayaa uu ku eegyahay. fadlan muuqaalka like saar, siina sheer garee. mahadsanid.